wafdi ballaaran uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda kheyraadka biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu soo gaaray magaalada Saylac ee xarunta gobolka Salel waxaanu kulan la yeeshay maamulka heer gobol iyo heer degmo isuduwayaasha alaamaha kala duwan ee dawladda intaasi kadib ayaa waxay kormeer kala duwan ku soo mareen deegaanka Bayada Dheer ee gobolka Salel iyagoona maamulka heer gobol iyo heer degmo si wada jir ah u dhagax dhigay ceel cusub oo biyo macaan ay ka cabi doonaan dadka ku dhaqan deegaanka gobolka Salel munaasabadii dhagax dhigaasi ayaa waxa hadallo kooban ka soo jeediyay halkaasi maamulka gobolka Salel ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka Salel Cabdirasaaq Waaberi Rooble ayaa mahadnaq ballaaran u soo jeediyay wasiirka wasaaradda kheyraadka biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee soo gaaray magaalada Saylac ee xarunta gobolka Salel isagoo arrimahaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri waxa halkan wasiirka biyaha mataqaanaa hay'adii ifad iyo injineeradii la socday wasiirka councilkii Saylac oo Xuseen Horkacaayo waxaan halkan wasiirku noogu dhagax dhigayaa biyihii Saylac oo aan rajaynayno ama ay naga ballan qaadeen wasiirka faahfaahin doona in sida ugu dhaqsaha badan la hawsha loo qaban doono wasiir bisinka noo qabo kuna soo dhaw waxa kale oo isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda kheyraadka biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland Xuseen Axmed Cabdalle oo isna ka waramay waxtarka uu yeelan doono ceelkani dadka ku dhaqan magaalada Saylac ee xarunta gobolka Salel isagoo wasiirku ka hadlay ayaa waxa uu yiri maanta waxaanu halkan u joognaa inaanu ceelkan oo ahaa ceelkii u horeeyay ee biyo macaan oo Saylac laga helo aanu ku xiriirino iyadoo ay hawsha fulisay hay'adda internationalka ee ifad inay ceelkan oo biyihiisu macaan yihiin 100,600 oo mitir simanisna ay yihiin oo ah standardkii WHO mid aad iyo aad uga hooseysa inaanu ku xidhno ceelkan maanta magaalada Saylac ilaahna waxaanu ka rajaynaynaa hawshaas oo muddo badan ay biyo la'aantaas ka taagneed magaalada Saylac inay ilaahay ka soo afjaro waxaanu ku rajo weynahay bil gudaheed ilaa December intaanay dhammaanin inay reer Saylac biyihii ay u baahnaayeen oo macaan oo markii u horeysay oo biyo macaan oo marka standardka la eego biyaha tayadooda marka la eego inta gaarsiisayeen ay helaan maanta ayaanu u dhagax dhignay waa loo xidhayaa waa ilaah mahadi waa guul u soo hoyatay ummadda reer Saylac waa guul u soo hoyatay xukuumadda uu hogaaminayo Axmed Maxamed Siilaayo oo ballan qaaday in dadka wixii biyo ah intay ka haqbarto waa ilaah mahadi ceelka biyaha macaan ee laga hirgeliyay deegaanka Bayada Dheer ee gobolka Salel ayaa waxa si weyn u soo dhaweeyay dadka ku dhaqan magaalada Saylac ee xarunta gobolka Salel